howlaha ay qabtaan oo dhan waa kharibaad waxaana ka mid ah howlahooda inay dhaxgalaan sistamnada iyo website-yada dowladaha sidoo kalena ay qaadaan weeraro elektaroonig ah dhammaan howlahaasi waa howlo ay ku caanbaxeen hackerska ugu awoodda badan caalamka halku dhigooduna waxa uu yahay annagu waxaan nahay kuwa aan la garanayn annagu waxba ma cafino annagu waxba ma iloono adiga filo weerarkeenna mar walba hogaamiyahooduna waa qanacsanaantooda xubnaha kooxdooduna waa xorriyadooda meesha ay degan yihiinna waa kombiyuutaradooda maxay tahay xaqiiqada kooxda loo yaqaano Anonymous ee la garanayn qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay kooxda hackerska ee loo yaqaano Anonymous koox ay dowladaha ugu waaweyn caalamka iyo shirkadaha ugu waaweyn caalamka ay ka baqaan koox aan la garanayn meesha ay ku sugan yihiin. We are anonymous and we are awake. We do not forgive and we do not forget. So expect us. Waxa laga yaabaa markaad maqasho hackers inay maskaxdaada ku soo dhacaan kharibaad iyo tuuganimo iyo qas shirkadeed iyo mid dowladeed iyo wax la xiriira laakiin haddaan indhaho ka warrama kooxda aan maanta ka hadlaynaa ma sameeyaan wax xatooyo ah ma sameeyaan tuuganimo kharibaad kalena ma sameeyaan duulaankoodu kaliya wuxuu daaran yahay ilaalinta xuquuqul insaanka iyo sidoo kale xorriyadda bal ka warrama dad noocaas oo kale ah oo uu hadafkoodu yahay inay caalamka ka dhalato xorriyad loo siman yahay magaca Anonymous haddii af Soomaali ahaan loo bedelo macnaheedu waxa weeyaan aan la garanayn wax allaala wuxuu yahay la garanayn ama ujeedada haddaan idiin sheego unknown ah ama majhuul ah qof garanayaana ma jiro sidee buu magacaasi ku samaysmay markii ugu horreysay waxay hackerskan isugu imaan jireen website-ka loo yaqaano 4chan waa website Instagram iyo imo iyo wixii la mid oo kale ah oo lagu wada sheekaysto qof kastaana uu user ka samaysto halkaas ayaana barkulan ah oo la isku arkaa website-kan wuxuu uga duwan yahay Facebook iyo kuwa la midka ah inuusan marka horeba kaa doonayn wax allaala wax macluumaad ah oo shakhsiyadaada la xiriira ee kaliya aad magac yaran soo gashan karto kadibna aad iska soo geli karto halkan ayay hackersku isugu imaan jireen dhammaan hackerska meesha imaanaya mid kasta waxaa ugu qoran Anonymous sida aad hortaada uga jeedo mid kasta Anonymous ayaa ugu qoran Anonymousna waa maxay waa unknown yacni la garanayn eraygaas ayaa wuxuuna sababay in la isku noqdo hal koox waa dhammaan hackerska magacaas isticmaalo oo dhan oo lagu wada magacaabo gebi ahaantoodba Anonymous waxaa la sheegaa inuu magacaabay nin la dhaho Obro Kochel ninkani wuxuu ahaa hackerskii ugu horreeyay ee ka soo qayb gala ama kooxda Anonymous isku tiriya balse ereyga ama hadalkaas lagu muujinayo ninkan aasaasay ma jiro wax cadeyna oo loo hayaa kaliya waa la sheegaa oo meelaha qaar baa laga yaabaa inaad ku aragto balse waxaa la ogyahay Anonymous inay yihiin dad iyagu iska aasaasmay magacoodu waa magacaas aan la garanayn ayagu waa kuwa aan la garanaynin ayaga laftarkooduna isma garanayaan sidaa darteed waxaan dhihi karaa magaca Anonymous waa magac la dhigay meeshii ku habboonayd ama waxaan dhihi karaa waa magac la dhigay meeshiisii saxda ahayd anigu waxa aan idin sheegayaana waa waxay isla ayagu sheegeen waxa kaliya ee la ogyahayna waa in hogaamiyahooda lagu magacaabo X laakiin taasi wax macnaa ama faa'iido ay soo kordhinaysaa ma jiro sababtoo ah X wax la garanayo ma ahan waxaa laga yaabaa inaad dhahdo X waa ninka lagu magacaabo Chris Doyon kaasoo la soo qabtay 2011 asaga ayaa hogaamiyahooda ahaa laakiin waxaan ku leeyahay inaad X shakhsi gooni u malayso ayaa waxay tahay laftirkeedu
qaladku meesha u horeysa uu ka bilaabanayo. dhanka xisaabta marka la joogo, x waxaad ogtahay inuu yahay variable, inuu yahay mutaqayir, yacni waxaan la garanaynin. sidaa darteed x-ka u ah hogaamiyaha ilaa iyo haatan lama garanayo. xitaa haddii 10 ka mida lasoo qabto, waxay ka dhigan tahay weli x lama qabanin. x waa qofka inta badan wejigu uu sidaan u yahay, badanaa hadla oo soo daaya shacaaroodkooda, waxyaabaha micnihii ay iyagu isaga hadlayaan. ninkaas ayaa loo yaqaanaa x, laakiin ninkaas laftirkiisa lama garanayo ciduu yahay, micnihii shakhsi ahaantiisa. waxayna aad u soo caanbaxeen kooxda loo yaqaano Anonymous in ay aad u caawinayeen oo ay ka qayb qaadanayeen oo ay ku boorinayeen in la caawiyo website-ka loo yaqaano WikiLeaks. WikiLeaks waxaa la ogyahay inuu sabab u noqday mashaakil weyn oo siyaasadeed, laakiin waxaan ognahay in ayagu Anonymous, WikiLeaks iyo waxaasoo dhan ay ka horreeyeen. kooxdan loo yaqaano Anonymous waxaa mideeya inta badan hadafka iyo meesha ay duulaan ku yihiin. dhammaantood haddii aad aragto wax qaldan iyo wax cunsuriyad la xidhiidha, wax cadaalad darro ah, meeshaasi waa ay joogaan. Anonymous astaanta lagu garanayo waxa ay tahay digniinta. waa kilib aad u kooban oo dhowr ilbiriqsi soconaya oo uu soo duubayo in wejigiisa aan la arkaynin, sidoo kalena codkiisu uu beddelan yahay. kilibkaas ayayna ku faafinayaan website-yadooda. kilibkaasina waa digniin, waxaana la gaarsiinayaa cidda ay ku wajahan yihiin. waa sida inay ku leeyihiin adigaanu kugu soo wajahannahay iyo isdiyaari, isna adkay. weerarkii ugu horreeyey ee noociisa oo kale ah ee Anonymous ay qaadeen, waxa ay ku qaadeen wariyaha loo yaqaano Hal Joore. wariyahan ayaa wuxuu lahaa barnaamijkaas oo uga hadli jiray farqiga u dhexeeya dadka cad iyo dadka madow. waxa uu dhihi jiray dadka cad ayaa ah hogaamiyayaasha, kuwa cad ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ee sharafta leh, kuwa madowna waa dad keliya u nool si ay ugu khidmeeyaan dadka caddaanka ah. ninkaas barnaamij waxa uu lahaan jiray fikrad noocaas xambaarsan. barnaamijkiisu xataa wuxuu ahaa barnaamij joogto ah. sidaa darteed waxa ay go'aansadeen Anonymous meel kasta ay joogaan inay burbur iyo baaba u shidaan, ayna ku qasbaan inuu joojiyo barnaamijkan cunsuriyadda xambaarsan. kadibna meel walba ayay isaga habar wacdeen kooxdii lagu magacaabayay Anonymous. duulaan ayayna ku soo qaadeen kaararkiisii iyo shakhsiyaddiisii iyo dhammaan bini'aadanimadiisii ayay gudaha ugu dhaceen. kadibna waxa ay ku sababeen arrin aad u qosol badan marka dhinac laga fiiriyo, dhanka kalena aad u xanuunisay wariyihii. arrintaasi wax kale ma ahan ee magaciisa, maadaamay hack ugu sameeyeen kaararkiisii iyo aqoonsiyadiisii, ayay waxay magaciisa ku dalbayaan shayaal ayaa gurigiisa lagu keenayaa adreyskiisii, maadaama ay garanayaan markii ugu horreysay cunto ayay maqaayadaha uga dalbayeen. micnihii lacagta dalabaadka isaga ayaa bixinaya oo kaarkiisa ayaa laga jarayaa. kadibna waxaa loo keenayaa cunto, cabitaan, alaab yaryar. mar walba way soo weyneynayeen alaabtaasi oo uusan bixin karin qiimaheeda, oo miisaaniyad dowladeed leh ayay mararka qaar ka sii dhigayeen. micnihii taasi waxay ka dhigan tahay waa wax uusan shakhsi caadihi uusan bixin karin. miisaaniyad yacni waa wax uusan shakhsi keliya bixin karin oo dowlad loogu talagalay ayay u soo dirayaan. magaciisa ayaana lagu soo iibinayaa, asaga ayaana laga rabaa. mar ayay u keeneen diyaarad helikobtara gurigiisa hortiisa. wax allaala wixii qarash ahaana
isaga ayaa looga fadhiyaa. Ninkii waa uu xanuunsaday wariyaha ahaa, aad ayuuna u rafaaday. Kadibna waxa uu gebi ahaanba halkii ku joojiyey barnaamijkii cunsuriyadda ee uu waday. Yacni waa sidii inay ku leeyihiin oo kale, inta aad barnaamijkaa waddo annaguna waan wadaynaa dhibaatada aan kugu hayno. Ugu dambeynna barnaamijkii ayuu joojiyey, iyaguna waa ay ka joojiyeen. Weerarkii labaad ee Anonymous qaadeen waxa ay ku qaadeen koox-diimeedka la magac baxay Injology. Kooxdani waa koox-diimeed oo Amerikaan ah, waxaana aasaasay Ron Ober nin la dhaho 1952. Waxa ayna leeyihiin kiniisado iyo waxyaabo badan. Waxa ayna ku nool yihiin dalka Maraykanka intooda badan. Xarumahooda ugu waaweynna isla Maraykanka ayay ku yaalaan. Kooxdani waa koox aaminsan caqiidooyin aad u layaab badan. Waxa ay kooxdani aaminsan yihiin in dhammaan dadka adduunka ku nool oo dhan oo in ay ka imaadeen space-ka sare ama hawada sare ay ka imaadeen, kadibna ugu dambeyn ay space-ka sare ku laaban doonaan. Waxa ayna dhaheen dhammaan dadka adduunka jooga oo dhan waa ay halaagsamayaan. Waxa ayna dhaheen keliya waxaa badbaadaya dadka aaminsan diinta Scientology-ga. Laakiin innaga muslim ahaan waxaan inay khuraafaad yihiin waa aan iska ognahay. Bal ka warrama haddaan indhaho dhammaan dadka ugu caansan Hollywood-ka diintan ayay qaateen, diimahoogii ayayna ka soo baxeen. Kadibna Scientology ayay ku biireen oo ay diin ka dhigteen. Waxaana ka mid ah dadka ku biiray aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Tom Cruise. Tom Cruise waxaa laga yaabaa in badan oo idinka mid ah inaad garanaysaan. Maanta uu aktarka ka yahayna aad si gaara isaga jeceshihiin. Keliya Tom Cruise-na ma ahan dadka caadiga ah ee diintani qaatay. Waa sida aan ku dhahay ku dhowaad kala badh dadka ugu caansan Hollywood-ka. Haddaba asxaabey, 2018 aad ayaa looga hadlay diintan. Qoladan Scientology-ga sida looga hadlayena ugu dambeyn waxa ay dadku isla dhexmareen in diintan Scientology-ga iyo Masoniyadda oo xiriir ka dhaxeeyo. Shaqada weyn ee Scientology-gana ay tahay in ay Masoniyadda caawiso. Waxyaabaha ayaa la isla dhexmaray dadkii oo dhan, qof walba ayaana ka hadlayay. Markaas ayay qoladii diinta Scientology-ga waday ay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan fursadahaas oo wax allaala waxa istaaga waa la waayay. Laakiinse markiiba waxaa soo baxday kooxdii Anonymous, iyaga oo yidhi annaga ayaa joojinayna. Kadibna kombiyuutaradoodii ayay u dhaceen, system-koodii oo dhanna waa ay dabagediyeen, dhammaan xogahoodii oo dhanna waa ay soo qaateen. Laakiin markaan Anonymous waxay samaysay si ka duwan sidii caadada ahayd ee looga bartay ee ay samayn jireen. Markii ay xogii Scientology la soo baxeen ma aysan baahinin ee waa ay kaydsadeen. Waxa ay yidhaahdeen marka loo baahdo ayaan baahin doonaa. Sidaa ayay hayeen ilaa ay ugu dambeyn soo baahiyeen hal fiidiyoo oo yar oo dhowr sekin soconaya. Fiidiyoogaas oo ka mid ahaa xogii ku jiray kombiyuutarada kooxdaas ee ay Anonymous qaateen. Fiidiyooga cidda ka soo muuqanaysay ma garanaysaa? Waxaa ka soo muuqanaya ninkii lagu magacaabay Tom Cruise, aktarkii weynaa. Tom Cruise waxaa ka duubay muuqaalka yarka culimmada diintaas. Tom Cruise waxa uu leeyahay diinta aan qaatay culimmadaydu waxa ay awood u leeyihiin inay abuuraan caalamyo kale oo cusub oo adduunyadan aan ahayn. Walaalayaal weyn, caqliga ummadda inay dabagedida ayay rabtaa. Sidoo kale wuxuu sheegay dhammaan cudurrada ay adduunku daaweyn kari waayeen inay daaweyn karaan kooxdani. Waxaa daaweyn kara hogaamiyaasha diinteenna. Saas ayuu Tom Cruise leeyahay.
midaas waxa ay noqotay qaab aad u foolxumo badan oo dhanna lagu qosli karo oo dadku ku mahadsadeen. Haddaba bal aan isla daawano kilibkan yar oo Tom Cruise ku hadaaqayo waxaan idiin soo sheegay. Markii Anonymous fiidiyogan waxay soo dhigeen bartooda YouTube-ka. Markii ay YouTube-ka soo geliyeen ee ay dad waxoogaa gaaray daawadeen, markii horreysay kooxda Scientology waxay isdhaayeen laga yaabaa inay dad badani daawadaan, xitaa dad aad ka heshaan. Laakiin markay arkeen inay dad badan daawadeen, dadka oo dhanna ay iyaga nacdalayaan, ayay waxay isdhaheen tani wax faa'iido ah ma lahan. Kadibna shirkadda YouTube ayay u dacwoodeen. Fiidiyowgii ayayna YouTube ka saareen. Markii ay fiidiyowgii YouTube saartay ayaa waxay kooxda Anonymous bilaabeen in ay markiiba ay burburiyaan kooxdii. Waxa ay soo bandhigeen qoraallo kasii xasaasiisan kuwo kale oo badan. Waxa ay soo dhigeen dhaatooyin iyo xogo badan oo kasii xasaasisan kuwii hore. Dhammaan website-yadoodii ay baraha bulshada ku lahaayeenna waa ay xidheen. System-koodii oo dhanna waa ay isu dhexdaadiyeen. Kadibna fariintan ayay u soo direen ayagoo ku dhahaya, annagu waxaan nahay Anonymous, waa aan ogaanay munaafiqnimada aad samaynaysaan ee beenta ah. Kadibna waxaan go'aansanay inaan idin burburino. Laakiin saaxiibayaal, waxa la yaab kale wuxuu ahaa muuqaaladii iyo xogihii ay ka faafiyeen Scientology waxaa ka mid ahaa macluumaad khatar ah, kuwaasi oo ugu dambeyn sababay in Scientology ay meeshaasi ugu dambayso. Maalinkaas wixii ka dambeeyeyna lama maqlin Scientology dambe. Wixii ay kiniisada lahaayeen badankoodna dowladda ayaa la wareegtay. Sababtaas ma garanaysaan? Sababtoo ah waxaa la ogaaday in Scientology aysanba ahayn diin jirta. Dhanka kalena waxa ay sheegayaan iyo khuraafaadkaas ay dadku spacekii ka yimaadeen iyo waxaasoo dhanna aysan aaminsanayn. Laakiin sababta ay diintan aas-aaseen, sababta ay ugu jiraan waxaas oo dhanba ay tahay in looga dhuunto canshuuraha. oo sidee dalkaas Mareykanka waxaa ka jiray qaanuun ilaa iyo haatan jira, kaasoo ah in macaabudda diimaha meesha lagu caabudo kaniisadaha iyo inaan laga qaadin wax canshuura. Sidaa darteed dadka caanka ah ee soo sheegaynay waxa ayba qaarkeed u galeen inay uga dhuuntaan canshuuraha lagu dalacayo ama ay uga cararaan. Markii xogtaas la baahiyeyna, markaas ayaana ugu dambeysay diintaasi. Weeraradii ugu dambeysay ee ay Anonymous qaadeen wuxuu ahaa weerarkii ay ku qaadeen shirkadda HP Gari. Weerarkaasi oo ahaa weerar cajiib ah. HP Garina waa mid ka mid ah shirkadaha cyber security-ga ka shaqeeya ee dowladda Mareykanka oo dhan ay ku tiirsan tahay. FBI iyo CIA iyo waxaasoo dhanna gacan saar ayay la leeyihiin oo iyada ayaa ilaalisa systemka kombiyuutaradooda. Shirkadda caynkaasi ah ayaa waxaa u dhacay laftarkeedii kooxdii Anonymous. Inkastoo qolo kale oo la yidhaahdo Lastic oo uu nin lagu magacaabo Mustafa Al-Bassam uu hogaamiyo, oo iyaguna qaybihii gadaale ka shaqaysteen. Laakiinse Anonymous ayaa markii u horreysay u soo dhacday. Si kastoo tahayba Anonymous ayay shirkaddii ku dacweeyeen oo ay dhaheen waa nala soo dhacay oo waxaa noo soo dhacday Anonymous. Cidda ay saa dhahayaanna waa FBI-da Mareykanka. Waxa ayna dhaheen rag noocaasa oo Anonymous la dhaho ayaana soo galay, ayaga ayaana waxaa sameeyey. Laakiin Anonymous waxay u soo dirtay fariin kooban oo ay ku leeyihiin, laakiin annagu ma aanaanba idin gelin ee albaabka keliya ayaan ballaqnay. Annaga ma nihin dadka idin soo galay ee keliya albaabka unbaan furray. Kadibna hackers yaryar ayaa idinka shaqaystay. Taas wixii ka dambeeyana Anonymous maadaameyna waxba u dhowrayn, ayaga ayaa xoog soo galay HP Gari
shirkaddii la odhan jiray. Shirkaddiina waa ay burburiyeen, gebi ahaanteedna dhulka ayay la simeen. Ilaa ugu dambayn ninkii shirkaddaasi madaxa ka ahaa wuu iskaga tagay shirkaddii, asagoo weliba xataa gurigii uu deganaana iskaga guuray. waxaa kaloo ka mid ahaa weeraradii cajiibka ah ee Anonymous qaadeen, weerar ay ku qaadeen koox lagu magacaabi jiray Kookalaakiska. kooxdan ayaa ahayd koox diimeed, waxa aana u gaar ah inay yidhaahdaan diintanada dadka madowga ah kuma soo biiri karaan, keliya waa diintii dadka caddaanka. kooxdaanna sideeda ayay ahayd koox aad u dhib badan oo dadka kala faquuqda. laakiin si kastaba ha ahaatee waxa ugu daran ee lagu necbaanayay ayaa ahayd cunsuriyadda. Anonymousna midda ay ka xanaaqday ee kusoo weerarta kooxdan ayaa ahayd inay bulshada cunsuriyadayso oo ay kala faquuqdo. laakiin Anonymous kombiyuutarradii ayay u dhaceen, waxa ayna ku qaadeen weerar burbur iyo baaba u geystay, midkaas oo ay bannaan ku soo dhigeen xogo 450 qof oo kooxdaas ka tirsana. waa ayna baahiyeen dhammaan xogahoodii sida adreeska guryahooda iyo wax walba oo ku saabsanaa. waxaana ka mid ahaa ninkii lagu magacaabayay Barry ee ahaa artistaha caanka ah, balse sumcaddiisii iyo caannimadiisii hal maalin ayay dhulka ku gashay. waxaase u galayna waa Anonymous. dowradii iyo dalabaadkii iyo wixii badnaa uu samaynayay oo dhaqaalaha ugu badan ka samaynayay eber ayay noqdeen, dhammaantoodna dhulka ayay galeen. cid wax ku falaysana ma jirin. maalinkaa wixii ka dambeysay halka ayaana ugu dambeysay oo meeluu ka baxay xitaa lama garanayo. dhanka kale asxaabey, nimankan waa Anonymous. weerar kalaa jira isagana oo ay ku qaadeen Dark Web, waxaa loo yaqaano website-ka madow. Dark Web haddaan idiin sheego waxaan kaga hadalnay muuqaalkii kan ka horreeyey, oo aadna soo daawan kartaan haddaydaan arag xogtooda oo faahfaahsan. sidoo kalena saaxiibayaal, xarumo iyo shirkado aad u waaweyn ayay weeraro ku qaadeen. manaha kuwanan idinka sheekaynayay weeraradii ay qaadeen oo keliya ee waxay qaadeen boqolaal weerar oo kuwan ka halis badan. mana ahan intan oo keliya ee kuwani waa qayb yaroo ka mid ah oo aan soo qaadanay ee 10kii weerar ee ugu waaweynaa ee ay qaadeen Anonymous. waxaa ka mid ahaa 10kan weerar ee shaashadda idinka muuqda. waa aadna akhrisan kartaan idinkoo joojinaya oo kolba hal buu isdhaaya. laakiin hal su'aal ayaa mudan inaan isweydiino, adigu Anonymous ma ku biiri kartaa? sidoo kale shuruud miyay leeyihiin si aad ugu biirto Anonymous? sidoo kale ma meel la yaqaano oo aad uga hagayso ayaa jirta Anonymous? waa kuwan ayaga ayaa kuu sharaxaya oo kilibkan ayay soo duubeen ayaga oo su-aasha ka jawaabaya. ay ku leeyihiin Anonymous laguma soo biiri karo. sababta aan lagu soo biiri karin maxay tahay? sababtoo ah annagu maba nihinba xisbi, mana nihin organisation. qofku meesha uu ku soo birayo hadday leeyihiin shuruudo iyo waxyaabo la isku xidhayo ayaa la dhihi karaa uu ku soo biiray. sidaa darteed mana soo biiri kartid. sidaas ayaa nooga mid tahayba haddii aad tahay haakaris, kaasi oo cadaalad jecel oo xorriyatul qowlka iyo insaaniyadda inuu u doodo diyaar u ah. So you want to join Anonymous? You cannot join Anonymous. Nobody can join Anonymous. Anonymous is not an organization. It is not a club, a party, or even a movement. There is no charter, no manifest, no membership fees. qisadeenna aan uga hadlaynay Anonymous intaas ayay ku egtay saaxiibayaal. fadlan YouTube channelkeena aad ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kalena kambalelka furo si aad ula socoto muuqaaladeena. muuqaalkana like saar. mahadsanidin dhammaantiin. sidaa iyo ammaano Allah.